Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, maanta waxaan ii hayaa xadiis shariif ah oo nabigeenu noo sheegay. Intaas ka hor su'aal baan ii hayaa. Maxaa kuugu qiimo badan adduunka? Naftaada miyaa? Lacagtaada iyo hantidaada miyaa? Qofka naftiisa iyo hantidiisa oo Ilaahay siiyey oo dar Ilaahay u hura maalinta qiyaamaha fadliga badan uu yeesho waa la wada ogyahay. Laakiin haddaan kuu sheego camal baa jira oo haddaad samaysid oo kaaga qiimo badan inaad naftaada iyo lacagtaada dar Ilaahay u hurtid. Camalkaas waxaa noo sheegay nabigeena calayhi salaatu wassalaam isagoo asxaabtiisa la hadlaya wuxuu ku yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam alaa unabbi'ukum miyaan niin sheegaa bikhayri acmaalikum acmaashiina ta u khayr badan wa askaaha cinda maliikikum allah agtiisana ugu udgoon wa arfacihaa fii darajaatikum darajadiina ugu sarreysa wa khayrin lakum min infaaqi dahabi waalwariq oo niga khayr badan bixinta dahabka iyo fidada mise qalinka wa khayrin lakum min an talqaw caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum oo niga khayr badan in aad cadowgiina la kulantiin oo aad dishiin oo iyaguna nidilaan qaaluu balaa asxaabtu waxay dhaheen haa noo sheeg camalkaas wuxuu yahay qaala wuxuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wassalaam dikrullah dikirka ilaahay dikrullah baa ka khayr badan inaad naftaada u hurtid diinta iyo hantida iyo lacagtaad haysatid diinta u hurtid waxaa ka fadli badan dikrullah. Allahu akbar waa camal yar oo fudud oo waqti kaa qaadanaynin oo inaa weesa qabtid u baahneen. waxaa dikriga ilaahay hoos iman kara subxaan allah alxamdulillaah laa ilaaha ila allah allahu akbar istikfaarka qur'aanka akhriskiisa iyo wax kastoo ilaahay ku xustiin waa camal yasiir ah calaa man yasarahu allahu calayh waa camal fudud qofkuu ilaahay u fududeeyo oo u yasiro saas daraaddeed waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu hadeeyo dikrigiisa mar walba waa intaas iyo xadiis dambe insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh